dumarka intay wax kale isku daariyeen yaa raggii waxay garan lahaa ninkii hortii ay garteen wuxuu qaban lahaa ninkii hortii qabteen ugu dambeynta wax walba marka ku filaadan isku haleyn ninka ay ka qabto ugu dambeyn hawshiisa ka dhacaysa marka ninkii wuxuu qaban lahaa adaa ka hor qabtay faaruq baad ka dhigtay waqtigiisii ninkiina faraaqil badan buu qashan loo qosto saaran markaas waqtigiisa wax kala sino loo baahnay waqti adigoo saad hawsha u wadid baad daalaysaa caawa markii uu ninkii dee ku dhacdo ku aawina laa ilaaha illa allah garaax baa iska kii daawo xanuunsan loo naasa haddee maantana waxaad qaatay hawshiisa caawna waad ka dhacday markaasi waa way adag tahay dumarku waa inay isjeclaadaan isku roonaadaan rag way isjecel yihiin way isku roonaadaan laakiin dumarku isma jecla waa iyada nafteeda uma jecla inay jeceshay mooysaa maadaama nafteeda jeclay nafta kale ma jeclaanayde markaasi naftayda markaan jeclaan waayo ee aan xaqayga siin waayo waxaan moodaa inaan wadka jecelahay ma jecli wadka waa dhibaya waan ku qaydaya waxaan moodaa ninkayga inaan jeclay laakiin ma jecli ninkayga waa cadaabay waa dhibaya taasina waxa ka kaasa markaan anigu aan xasilooni lahayn jacaylka adigu kaa bilaab maaha xasilooni aan markaan lahayn walaalayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub hortada ka cusubtiin channelkayga magacayga waa Nasteexa Manaas Axmed maanta waxaan ii wadaa muuqaalkii part 2 waxaa ii marti ah Mama Fawzia Cismaan Dubad oo nooga timid Mareykanka soo dhawow mama waxa lagu yaqaanaa Mama Fawzia Jacayl masha Allah soo dhawow mama masha Allah waan ku dhawaay maanta walaalayaal waxaan ka hadlanaa guurka dib si laba qof oo lamaana hadday say isla dhaqmi lahayn everyday waxyaabaha yaradee inoo jaceylka guurka kadib wadi kara amaama noo warimi doonta ida iga taqaanta insha allah waan ku dhegaysanayaa maama masha allah bismillah guurba ma haddaan galnay waa dabaqadii boqortooyadii raaxada waana dabaqada dadka qaarkood isku fahmi waayaan markaa sida aan uga helno xaqii aan ku lahayn boqortooyadii raaxadii iyo waxaan ka helno waxaan isku dayanaa wax yar yar ah oo macaan ka dhiga guurka inaan isku dul akhrino guur markay tahay ilaahay dumar haddaan nahay wuu noo raaxeeyey maasha allah inaan ku raaxaysano ragga dumarku ilaahay noo diyaariyey waxaana ku raaxaysanaynaa wax yar yar ah waan ku raaxaysanaynaa waxaas waxay ka dhigan tahay waa inaad garatid halkan inaad murugo ka tahay murugo waa inaad garatid ninkani inuu qayb adiga kaa mida yahay waa inaad garatid ciyaar iyo farxad iyo kaftan iyo qosol inaa nolosha waa adduunya horta waa adduunya waa daar imtixaan oo ma dhici karayso nolosha adoo dhan hameen dharaarbada farxad ku jiraysa suurtagal maaha waqtiga qaarkood waxay kugu qasbi adduunyadan inaad wax iska fahmi weydaan nimcada jannada baa laga helaa ilaahay gaarsiiyo waqtigeyga allahay uu ilowsiyo xawaasha adduunyada marka waa wax ceeba maaha haddii wax laysku fahmi waayo laakiin waxaa ceeba in laysfahmi waayo waa inaad inuu ka shooraysataan wixii jira laakiin arrimihiinu inay dibadda inagaga bixin dibadda hadday u baxaan qandaraas weyn buu shaytaan ku qaadanaya waa shaytaanku ma ogola ballanku ilaahay la galay reer guursadayna waxay sabab u noqdaan hadday wanaagsanaadaan adduunyaduna wanaagsanaato hadday xumaadaan adduunyaduna xumaato marka halkaas u dhigtaa marka dibadda u baxdo waxa ujeedaan camdad adaas dibadtiiniya waxaas dibadda ha u sheegin dad dibadda ha u sheegin okay amba fahmi ha noqoto amba saxaab ha noqoto xeerashaad samaysanaysa ha noqoto matana waxbaad isku diideen saacad waxaynaad yeelataan saacadda wareysiga la idhaahdo subax kadib waqtigaad helinaysa daniga garanay saacadda wareysiga la idhaahdo oo joogto ah si kastoo loo cadhoodo si haddii la kala maqanya xitaa laysla soo hadlo saacadda joogtada hadda marka laysku xanaaqay maaha waa la degan yahay waa inaa maad aragtaay la furo se wuxuu dhaceen maxaa waxa u sabab aha si degan buu ku sheegay si degan baad ugu sheegay waa isfahmaysin waa israalinaysin jacaylkii oo saamintiisii aad kusoo maydhay marka la isku racadoo saamin wey yaad laafta iskashanaysin jadiid buu jacaylka noqon maasha allah meeltaas waan kula socdaa waxaana horta badanka khaladka maqlo taa waqti yar taa baan doonintaan yar qaadano badanku habluhu dhexdooda the secret waa iska garanaysa marka la is arko wax kastaa la isku sheegaa sheekada adiga odagaaga waxaana dhex socdaa wax kasta markaad waxaad tiri waxa adiga odagaaga dhex jira hadday tahay dagaal ama khayr hadday tahay wax afkaaga xiro baad tiri taa waa kula fahmay laakiin maxaa ka sheegay iminka dadka hablaha matalan hooyadood u sheega markay odagooda isdiriroon oo faamiliga u sheegoon ilaa xaggaana waxaa ka imaada dee problem weyn maaha ilaa adigu odagaaga waa u saamaxi laakiin hooyada uma saamaxayso
markaas hadal yartaan ugu may taas abade muhiim oo ka hadlayo hooyada inaad u sheegtay ninkaaga inuu ka dhibaataynayo horta danaguurta way ka naxaysaa sax way murugoonaysaa inanteedii inaan la dhibaataynay arkaysaa marka ka hooyada horta qalbigayga waad xumaysay laba ficil buu shaydaa ku gelinayaa saddex waxay moodi kartaa inaad ninkan ay kaa xigto waxay samayn kartaa in ay adiga kula inay kula falqaado nacamdee ninkastay kaaga dhicin lahayd taasina waxay iman doonta inuu ninkaagii yaro ogaado inay hooyada ay de ka horjeeda isaga ninkaagi qalbigiisana hooyada uu geera fogaanaya colaadaha iskula imanaya ficnida baa meesha ka baxaysa ruu ahaana gabadho wiil kuma noqotay wiil bay ku keentaaba layidhi wiilkaad gursata hooyadaa wiilkayga weya saas oo kale gabadha wiilkaagu gursatana gabadhaadi weya marka qof kastaba xaq buu leeyahay wada gaara la mariyo marka xaqiisa qof kastaba xuduudiisa hadduu ku sugnaado xuquuqdiisuu helaa markaasi inagu xaliya waxay dhib jirtaa dhexdiina xaliya samaystana iminka matala ninkaagii baa soo galay dibadda wax ku hel lama garanayo cadha meel kaloo kasoo cadhadayba laakiin waa isku kaafaaruqinaya shamiiskiisa meel soo dhow rabaa nacam dee aduu kusoo dhanaya aduu isku kaafaaruqinaya isku hadlay waxan kugu haysto beri baad ka tahay haddaad ka dhaadhici ma ka dhaadhicin kartid waayo buu isku kaafaaruqinaya haddii aad la dagaalantina dee meesha dhibaata imanaysaa okay qabooji raali noqo caynkaas isdeji maxay kala dheh haddaad kala wada iska aamus waqtigii markay gaadho isagoo degan waxaad ku taada maxaa kugu dhacay maanta waxaad dhuraysay waxba kamaan galana bal ifahamsiin uu degan kuraa ka raali ahaw si kale ahayd meel kale ka cadhoonaysaabay ahayd waad ku maasantay intaad dhegaysatay intaas ku kaafaaruqiyay waa dad ku xiran jiray beriga hore moogtahay ciyaalka wararada meel biila ku qaraxay oran jireen marka adigu kusoo qarxay moogta haddaad betrol ku noqotay ka waran betrol haddaad ku noqotay bul markaa biyo inuu marka dambe iga raali ah buu qoranayaa madaxu kaa dhukanaya waadna waad farxaysaa marka wax waxay saasaa jira moogtahay maasha allah waxaa kaloo oo jira inaa maad aragtaay gabadhan iyo wiilkan say noosha u macaanaato diinteenu wax badan bayna bartay oo ninka uu kugu leeyahay adigu aad ku leedahay waxaasina qaybta ninka wax la rabaa inuu ninku sameeyo waa wax yar yara wax lacag doonaya wax adagna maaha qaybta gabadhana wax la doonaya inay samayso qaybta gabadha haddaan soo qaadano diintan waxayna leedahay ninkaaga kurka u ilaali nacam iska ilaali markuu ku imanaya ninkaagu aragtay foolxun inuu kugu yimaado intaad saran jeefin karaysa la hagaajin karaysid sanka u ilaali carfiga goon yara kaayla uriyo dhigaha u ilaali nacam dee dagaal markuu soo galaba dee xagaad ku maqan tahay maxaad la joogta caynka ma tahay waa su-aalihii dee ka ilaali gogosha u ilaali hadduu kuu baxdo kuhela korona meesha ka dhimatay bareero ku dhintay gogosha moogta dumarka intay wax kale isku daaliyeen yaa raggii waxay garan lahaa ninkii hortii ay garteen wuxuu qaban lahaa ninkii hortii qabteen ugu dambeynta wax walba marka ku filnaadan isku haleyn ninka ay ka qabto ugu dambeyn hawshiisa bay ka dhacaysaa marka ninkii wuxuu qaban lahaa adaa ka hor qabtay faaruq baad ka dhigtay waqtigiisii ninkiina faraagil badan buu kashan loogu istur saaran markaas waqtigiisa wax kala sina loo baahnay moogta adigoo saad hawsha u wadid baad daalaysaa caawa markii uu ninkii dee ku idhaahdo ku aawina laa ilaaha illa allah garaax baa iska kii daawo xanuunsanad odhanaysa hadeer maantana waxaad qaatay hawshiisa caawna waad ka dhacday markaasi way adag tahay marka waxaa la doonayaa in maad aragtahay bushan la hagaajiyo cundhada laftigeega oo dee laysla karsan jiro oo laysla soo kula shaqeeyata moogta qasab wax lagu qabsado adigu inaad nin iska dhigtid gabadha ciidana maaha oo isaguna saynamadiina waa inta badan yaqaan halka fadhiya waa inaad isla karsataan oo basashaana kuguya caynka noo sameey rasuulku isla shaqaysan jiray oo la ciyaar lagu sameeyo waxaan kala ciyaaro oo markaasaa loo shaqeyn makhaadada la isku tuuro oo la kala carro oo wax la sameeyo xarakaad nolosha waa inaan laga dhigo wax macaan oo wax culus aanan laga dhigin haddaad noqotay gabadh aqli badan oo fariida oo shaqada taqaanta oo miisaan leh oo samir badan waa fariidnimada khaldan walays baad noqon dhexda xirabaaba lagu leeyahay fariidnimadii la sheegayo waxaa fariid lagu sheegaan waa nacebahay waxaa samir lagu sheegan waa nacebahay labadu way fiican yahay samirku wuu fiican yahay laakiin wixii xagga ilaahay ka ahaaday inuu samir weeyaan fariidnimada way fiican tahay laakiin wadadii loogu talagalay inaad kabeega xidhatid weeyaan gabadh baa culays badan la saarayaa nafteedii raaxaysan laheyd ee farxi laheyd ee xaqayga heli laheyd iyo xaqayga la diidsiinaya nafta way cadhaysantahay kuleyl baa ka imanaya marka naftii daashana waxa lagu leeyahay samir kulaylka daanka ku samir waxaas waa qalad
markaas naftan waa inay raaxaysato xaqeega hesho isla markaaba xaq qofka kala bixin kartaa صح قارنها markaasi maxay ahayd inaa saa la iskaga ciyaaran fiican markaa gabadhu say waxaa u samayso wiilkana waxaa looga baahan yahay matalan ninkaagii baa imanaya dumarku wax ka nadaafad badan ka qurux badan ma jirto wax ka jecel reerkoogu inuu hagaagsanaado ma jirto oo way uga kalgacal badan yihiin way uga daacadnimo badan yihiin ragga gabadhii oo ninkeygii ilaalinaysa indhihiisa sankiisa wixiisa ilaalinaysa oo isdiyaarisay ninkiiba hadduu yimin waayo soo dhima haba yimaadee hadduu qof ku arkayn oo kisa ku arkayn ba hadduu iska dhigna soo dhima niyad meelaysa birtaad ku hagaaji صح قارن waxaa la doonayaa ninka inuu dhaha kugu furo oo kadhaa maasha allah xabiibtii shiri caawi xoog badan sii qurux badan tahay caawi xoog badan qurux badan tahay maaha ma awal baa foorna waa soo qaskalaysa شيطان xoog قارن badan sii qurux badan tahay hadduu ka idhaado intuu qabto laabta gasho yara boqojo madaxa ka dhunkado maxaa ku dhacay lacag maaha wax adagna maaha laakiin taas wax u keensaa inuu weligii arag istaantiisa oo qaab dara ma arki karo marba marka dambaysaysa sii qurxinaysa iminka rag waxay yidhahdaan raggu dumarku markay baxayan way isqurxiyaan markay joogaanna way isqaribaan laakiin haddii waxaa hadduu sameeyo ninku maalin kaste gabadhu way labisanaysaa way isqurxinaysaa qurux yaroo baylbaylaxsan dee arag markaad joogtid waa inuu jirkaagu hadoo jir yaro baylbaylaxsan waayo quruxda jirkaaga ku jirtaa waa inaad ninkaaga banaanka kusoo bixisid si uu kuu daawado muuqda rag waxay jeceen dumarka inay daawadaan aragtidooda iyo quruxdooda saas oo kale cunto yar markaad samaysid hadaabaad kelidaa samaysid oo dee isla samaysid baa ka qurux badan waa inuu yidhaahdo maasha allah fariisabteeda ka dhameeya shiir wax fiican baad noo siisay صح قارن waa inuu yidhaahdo maxay ahaday toddobaadkii waa maalin ku boqol jooga sababta waan jecel waxaa ka baxay kalsoonidii baa ziyaadaysa ujeedinaya waxaa ka baxaysa shaytaanku ninkastee maaha see kuma jecla wuu sii jeestay wuu ku nacay waxaaba ku celceliyaa shaytaanku صح قارن aakhirataanka waxaa warsta hore maaha madaxda oo la fadhi lahaa maxaad nooga iman laata si hore ma tiidi marka waad nacday waxa haddaad ku heshana waad karaama seegaysa haddii toore ninkuna kool weyn buu xidhanaya marka maxaa sameyn lahaa maxay sameyn karaan de hablahan imika de waxaad tiri islabishay hadduu ninkan kuwa arkaynba may de waa qaybta ninka waa inuu arkaba kuleehay musaana yidhaahdo okay rag iyo dumar waa inay isbuuxiyaan waan fahmay taa gabadhu kelida wax ma samayn karto ninkuna kelida wax ma samayn karo de hadduu sameynayn oo helina qof ka eraada malaha tan iyo tani samee adukaaga maxay sameyn waxaad samayna horta ragoo bini-aadamkuba wax mooda samayn karaan rag waxaa jira waxa aan odhan karaynin iyo rag ay u fududahay baa jira laakiin manaad garatay ninkaaga markuu yimaado muuqaalkaaga uu ku farxaya niyadda laakiin way kasoo bixi laada laakiin ninkuna waxaa odhanayna wax kalaba haddii aad samayn kari weydi dee saar u taabo xaajiyadda oo saar gara qabso khalaas waxaabay ka helaano u ah wax qaaliya moogta ninku maanta hadduu gabadh qaado uu adduunyadaas soo daawisiyo dahab kasoo wada laalaadiyo bil bay ku farxi bil waxaa ka dambaysa iloobaysaa laakiin hadalkaa yara waxaa yara baa yaa gobo ah marka labada qof waa inta ka sheekaysan dee waxaa lagu yaqaanaa love language waxaan imika waxaa jira physical touch waxaa jira amaana waxaa jira dadka hadalka qurux badan jecel waxaa jira act of service hadduu waxan aduu guriga kula maanta hadduu guriga kaaga shaqeeyo ka yaraado maanta waxbaa qaban intaa wayba ku farxaysaa maaha so labada qof waa inta taa ka sheekaystaan qof kastaba love language ayuu leeyahay maaha so taasaan kula qaba laakiin waran gacan keligeed kuma saacabeyn karta gacan kalaata maaha markaas isaguna waa intuu dee inaguna waxa aan leenahay makuu sheegaa fulinimada waa inaa ka badatay oo raggii waqti baan siinaa wax noo qabtaanba ragga waa inaan isugu gasho hawsha oo maad aragtahay ilmaha la jeclaysiiyo laa markaad walacaysid kabilowdid adigu waa inaad qaabkaa loo ciyaartid laakiin ma doonaya ibliis ku xidhanaya ma taqaantaa waad qurux badan tahay iyo waan ku jecelahay iyo inta macaan tahay iyo waxaa la leeyahay wuxuu ka odhanaya warniyo isu xishooni weyn baa tahay ama naagta weyn baad waxa ka odhanaysaa maxaa kuya waxaasiba ka odhanaya hadduu diido ninkiisa soo qaadqaado oo ka idhaado naagta wuu imanaya wuxuu ka leeyahay maanta ku arkay markaas weeye leedahay war indhaha waxay ku maqnayaan ku maqan maanta aragta quruxdeeda leedahay wixii uu daadinaya waxaa laga adkaysto shaytaan waa laga adkaysto inaa wax isku tihin waa inaa la garto marka haddaad intaa kale u weyda hadal wanaagsan qofka oo lagu idhaahdo way ku saacidaysaa isagana marka adigu mar intan kameraaga shidin ka hor waxaa ka hadlaysay waxyaabo yar aad sameyni kartid markaas maxaa sameyni lahayd like concretement maxaa sameyni lahayd imika hadduuba ka ta kalena waxaa jirta badankaana ku raggu waxay jecel inta ammaantid you know fariidkeygiyo markaas waxayna kuu qabanaya waa intaad acknowledge aad siisid oo ka tiraahdo waa mahadsan tahay maanta intaa waxaa nii qabatay
bas badankeena ma oran waxaan soo xasleeno qasab aniga soo aniga qabanay taasid markaas taasid nooga yar hadal wixii markii sheegay ha ma eeg tusaale haddaan soo qadan xoreyad طريقة كابختي لما دا كابختي كبنية هاي مسقول برادا مسقول برادا كابختي دمر كانوا في الدنيا كقبانة يا كاوحي برا ما ينموت ويمي ده واحد كتري طريق بابختي ومركزان صور قضايا مركزان كيلو دك باكسي واحد في عبادة سويسة شكات كقبرتي لكن ما بيسكو بدرس هالتاسي يقولنا دك دك لا سويستا واحد بدك وصل برا وش إلا شيء قدر دجلس روسيا هذا وقت أنا مركز كذا بسام استوقت بعدين هسا مركز واحد لو بقى هاي مركز صاص كود عضو نكلا الحوا هذا بيبيس كذا جاي صح حبيبي طريق وقتي طريق عن كعب صوري نبود إنه صح حاجة كلام وصميع وحاجة صح حتى هليل ينقف وشاقي واحد جدي عن كاس السماء ديك ساعة صوص عن يوم لكن هو تعبوا سمين هذا صفر عن كعب بحي صفر كعب بحي هذا صفر كعب بحي wuxuu qoranayaa hawan absoon ciyaar bas ka dhagaysan habka qana waraabo qoonayno laakiin hadduu si fiican kaaga baxay markuu ku yimaado ku sameeyana waa inaad ka ma sha Allah habibi muqdiman ku jirnaan oo badan ilaahay ka deysto wallahi warka rag ma jecla inay naagu ka aqli bataan ka karti bataan waxa ma jecla marka tusaalaha waxba inta sameeysaa oo dadka ka badaysataa waa inaad ka taade habibi waxba fahmaya kale caawiya awood baasina saadka hadduu dad waxaan gartaa abiyuuna garan inaad u baahan tahay ogtahay inuu wax garanay waa tastay waqti marka waxaa kuu sameeya iska samaysa wixii allaaba garanaya deetan waad ka tiraahdaa khayr badan allah ku siiyo waa ku daaranay walaa waad kala turni jazaaka allah no it's true marka ninkaaga soo saar quwadiisa soo saar waqti wax qabtana u sabee laakiin haddaad ruuxiisoo talaashay waa tahay isku filan baad noqonaysaa markaasaa dhexda xidhanta markaasaa banaanka laga tagay u firiso gabadhay ka firisan tahay ayaa ka dhibaato badan laakiin naagta ka jilicsan tahay buu ninku hayn og yahay waayo way kuu baahantay bisleegu waqtigeeda isla fahmi waayo waxaa ka mid ah waqtiyada markuu ilaahay ilma siiyo kale ilmuhu waa wax fiican lagu farxo laakiin waxaa dhici kartaa ninkan xaq baad u leedahay inuu adigna ku kolkoliyo ilmihiina uu kolkooliyo labadiina baynu kolkooliyo markaa wax iska dhici karta wax iska dhici kara ma ogtahay ninkii markaad gursatid gabadh baad ahayd jirkaaga waxbaa kusoo birbiray waa jeceshay kalsooni baad siisay haddaad tirahdo walaahi wax madaxan bay xumayaamaha iska tiraahda caadi adigu jeed wax kale marka isagii hadduu u maleeyo si deg deg ah inuu dee beebe yimiday uu kolkoolinayaad aynu furayso maxaan ku ishaa caynkaan wuxuu ogaada marka dambe inaan ahayn banaanku ku dhameeya sheekadiis ilmihii run marka u yimaado uu arfo wuxuu leeyahay alxamdulilah ilma khayr qabaa lahayn laba dhigo kolkoolinta uu yaraynaya waayo hadeer buu soo sameeyey shaydaanku wuxuu odhanayaa kolkuu ku jeclaa waa kiistaa ku haya maanta niyad kuma hayo ilmahana dadana raaliba kama habo waa waalida shaydaanku deetana wuxuu ku odhanayaa suuqu ugu noxo tusna caminaa dhibaataysan tahay amba inaad matigiisa xanuun badan utucune waxa tus taasina wax fiican ma aha ninkan isku mid batidana ma ogtahay marka mar kastaba adigiyo qaatiyana wala ugu jiraa oo uu dhibaato badan yahay oo mid baa ragga jeclaada mid baa ragga naca mid baa bukooda mid baa maadaragtay warba laga hayno ilmihii oo dhaqaaqu la arko kaalahayna wada siiyo mid baa ninka badan 3 bilood baa la wax la urtaa marka waxa bay jiraa kadibna waa iska bogstaa marka waxaa la doonayaa kuwaasi ninka la nacayo ama ninka la jeclaanayo amba la bukoonayo gabadha ma maaran karayso taas waa inuu ku yaqaan u maarayo ninkana waa ninoo waxba kama garanayo waa inuu gabdhaha kale ee hadalkooga maqlayo ku kalsoon yahay sida hooyadii walaalihii waa inay u macneeyaan warun maynta aan kula qabaa laakiin hadday u macneyn waayaan oy si farxo ku waxeeyaan dee wuu dhibaateynaya gabadhii moogta marka dumarku waa inay isjeclaadaan isku roonaadaan rag way isjecel yihiin way isku roonaadaan laakiin dumarku isma jecla waa iyada nafteeda uma jecla inay jeceshay mooysaa maadaama nafteeda jecleen nafta kale ma jeclaanaya de markaas naftayda markaan jeclaan waayo ee aan xaqayga siin waayo waxaan moodaa inaan moodka jecelahay ma jecli moodka waa dhibaya waa ku qaydaya waxaan moodaa ninkaygana jecel laakiin ma jecli ninkayga waa cadaabay waa dhibaya taasina waxa ka kaaysa markaan anigu aan xasilooni lahayn jecelka adigu kaa bilaab maaha xasilooni aan markaan lahayn markaasi waxaa la doonayaa xaalada walaca oo kale marka lagu jiro inaa horta dee laainta rugta imanayso markaad ogaateen laga idhaahdo dee saasa leeyahay waxba ma garanayo isagu ha ku eego
maashareed wuxuu taa ku weego haku bisharay halkan aan ka bilaabo marka caadigaagi saas iga dhigay intaas iska dhigaysan iska ahaw hadduu wax kuu keeno isagu ma garanayo wixii waa wax ku raayad nacaysid laakiin uu soo dadaalay sama markuu soo dadaalay ka taa maasha Allah yaa ku sheegay xabiibi wallahi wax maanta dhan niyad aan ku hayay kala waa dhaqaaleynaysaa hadalkaasi uu nooleynaya moogtay bish markaa fikiraysa waa waxaad nacaysid mataka runtaa ka ayma haddaad shimiska ka daaysa raalid ku noqonay sababta hadalkaad ka tiri baa meeshii hagaajinaysa sii hagaajisay okay kadib waxaad doonay inaad ka tiraadid maxaan ku dhahdaay maxaa dhacay maxaan uma tagaya wixii aad ii keentay waan ku tax qasaaray waxaan doonay caloosha fiirsan waay maxaan uma tagaya sababta uu yahay doctor waa fikiraya maha wuxuu fikiraya wixii mataga keenay wixii kaa goynay laakiin hadda fiishto ka saaran wuxuu odhan waa sheekada bareed laakiin markaad marka karaya ma doonay markaad dhabatid waxa sheekada bareed odhanaya laakiin marka uu kula tacaalaya saxo waxaynaya markayna qaabka loola socdo ayaa fiican ilaa ilmaha adiga dhalay isagu waa nin rag markaasi oo dee bimacnaa adigu isagu mu soo walcinde markaasi ilmahan waxaa loo leeyahay ninkaani ilaahay damadii loogu qabanaya ninku lagu samayn jiray intuu la kursan uu shaqo tegi jiray dumarna inuu helanaysa kaa ubaahna imanka labadii ku sameeya qofka walacaya oo dhalaalaya caynka hawsha waa gabadh weeyaan markaa maadaama ay hawsha ku dhacayso waxaa rabaa ninku si uu kolkoolin lahaa inaan laga idhaahdo ilmaha adiga heer waxaa la gaarsiiyaa naaska haddaad diidid uu kaaga iibin karo suu kuu dhaqanaya laga wada markaasi waxaa la doonayaa in maad aragtaay ilmahaaga aad tiraahdo ilmahaaga imankaa ilmihii uur baad leedahay magacii baad isku qabateen magac buu doonay hadda magac baad doonaysaa isaga magaciisaa la ogol yahay sharciyan inaa loo bixiyo diintu caqli maaha waa xikmad caqli hadday tahay dee ninkan isaga dhalay maanaa dhalay waa xikmad waa si inuu ku xajiya marka waxaa doonaya inaa xarakaad kale la sameynayo ilmaha saas ku jecelaysanaysa aabihi oo kale markaan ka hadlayno ilmuhu dhaqaaquu sameeyaa mugta markuu yaro weynaada fara badan yaro dhaafo dhaqdhaqaaqa ku sameeya dhaqdhaqaaqa waxaa la doonaya ninkaaga oo jooga meeshanaad qayridid saad wax cajiib aragto oo kale hebelo jiri sooxay waxba ku tusayay afar maqaldiisa soo xaran maxaa ku dhacay maxaa ku helay wallahi waxbay meenayeen wallahi meenu dhaqaaqaya taab soo eeg soo dhaqaaqaya ilmo baqti ku leeyahay dhaqaaqla waa sheeka caruur waxay raggu dumarku waa caruur dumarku waa rag waa caruur laakiin labada mid ka caruur ma nolosha caruura nolosha hadii kaaga wadaan waxba kuma taal marka waa inuu la qabsado oo xiriir ay yeeshaan ilaa uu maantu xiisay ku maanta meel ma dhaqdhaqaaqay sarka laga baahan ku doonay marka dad waxa la ay kala hadalin ma hageero halka ma kala yaatay bad ma tayir wiidari washa kaarore saabu ku qabo xorina aabo weeda hadaarintay ka taqbado ay fardo ay ka saantay gadaari iyar kadib waxa qoran ninkan hadalkaaga ilmaha hadalkaaga nin aragtay hadalkaaga soo u maqlaan waa ban ka yaabay marka laasho bad u dhay oo seexanaya alla soo ku yaqaan soo ku aqbalay ilma baariyo amarkaaga iyo amarkaaga qadla ku soo socday wuu sugayaa ilmo ay maray jacayl baa calooshiisa ugu jiro ku baabaya cajiib wala qadra kolka kadib waxa la doonayaa markan aad umuli doontid qalabkan soo iibinaysa saraacdi markaad umuli doontid isku diyaarisid ama ilmahaagi dhaqidee waqti casri ah bidii joognaabay kuushkaagi hadii qofka wada la jeexay ma aragtay kuushkiga inay malaha yar masaxato inay kusara hadii caadi wada shan alxamdulillah iska marato aynka aroosad iska dhigto ilmaha daaqarka markuu ugu yimaado gabadhi gashu ka galaya saaminkii loo soo sameeyey laakiin ninkii aan saa loo soo sameynin waxaa imanaysa dee halkaasu istaagayayo iska warasee tahayo ilmihii ka warano waxay usu dhagaya waa soconayaan dabeecadna dadkeena waxaan fari lahaa gabadho hadday dhasho amba daqare ku jirto dadkeena oo dhawa dad wanaagsan wogta way kugu tuulmaan way kugu ururayaan ninkii ma xasinayaan waqti uu ku faaraqo marka ninka markuu yimaado waa inaa xoogaa waqti la siiyo waayo waa doctorkeyga moogta doctorada fisiidka maraya ayuu kamid yaho waa doctorka ugu wanaagsan isagoo ka shakeero galo oo yarada taabtaa wax walba ugu wanaagsan markaasi ninkii saa loo soo jilciyey saa loola soo dhaqmay dad badan oo jooga hadday doonto ma arkayo kashu kaa galayaa kii kalena garawaad halkaasuu joogaya moogta shaydu kaaga ilmihii markuu yimaado ee seexinaysid ilaali wax mara isku duubay waxa ka ilaali ninkaagi waad joogtaa halka badoo sheekaysanaysiin juice baa isku ratiir ilmihii baa ooyaya maxay sameeyeen gabadho bisne ka hor balay ka tiro ilmahaygi baa ooyay ilmahaygii waa qalad adaa ka hor maqli
caloosha ku xanuun hooyada waan garanayaa laakiin xoogaa yar adkayso siyaasadda ka dhigan tahay ilaa intuu ka maqlayo markuu ku dhahdo kalbiinay kacay waxaan ku taranaysaa xabiib mahrow jaalu shariifada maaragtay marka yar sheekaysana mubu ooyaay halkaa waxaa ka dhigtaa adaan ku doonaya kaa xiisanaya ilmaha markaas isagaa kiciyo lugiisa ku doonayo oo dhabta ku qabanayo markaasuu ku baarin waa ilmaha inoo ilaaliyo saha ku orno maxay ilma jacayl baad qaadsinaysaa isaga ilmahaad isku xiraysaa laakiin ilmahayga haddaad tiraahda haddee ilmaha gabadee talabaadna dee maxay ahayd gogashoo kalena dhaqankii iyo wixii hore waa laga way xumeyd oo ilmaha marka naas kala sina lama kulmiyo waxaaba jiraysa moogta waxaas waxaa kuma jiraan dhiiga xaydka iyo ka umusha markaad leedahay galmada ma samayn karayo laakiin wax ka horeeyo badan baa la samaynaya bahaysa markaad ay kacdo waxa la doonaya qaab diinta oo kasha inaha loo kaalmeeyo marka waa inaad gogashaada aad sarartaada ka dhaadhicin waayo ilmaha marka la dhalayo umul baleerdaayo maqsin kalaa dad ku sameeyaan waxaa horeyba u timid oo ninkaa lagu garaabiyo moogta oo wax qarmuun baa la shishidanayo oo ninku buru shaqatay garuurin jiro laakiin wixii kama jiraan wax qarmuun baa la shishidanayo ilmaha baa loo shidi jiray geedaha geedaha ilmaha loo shidi jiray hortaa waa lagala socon jiray maya ninkan dee tariiga iyo xarakaadka lagu diiday kelidu shaqatay laakiin aduu bay khibrada shaqa tagaysaa marka nin ilmahana waa inuu maad aragtahay oo aduu sarartaa aroos ka timiday waa inaad joogto noloshaada dhibaatay ilmaha kana dhinaca maraya amba dhowrka halkan u dhig daada ku taala talabaad ilmaha waa inuu hawshiisa garto oo kula qaban karo waa inuu jeclaa isagaaba kaaga horeynay markaa ninkan halkiisa si oo jacayl u fidi ilmahaagana isku xidh oo isjeclisay maasha allah haddaan soo noqono ciyaarka imika la yidhaahdaa waa isguursanayaan laakiin waxaa odhan lahaa dhinacay ka fiican tahay waxay ka fiican tahay kow waxay ka badbaadayaan gabadhii weli markaa isguursaday oo dadku ilaahay wax ma siiya gabadhii sheekada caynka oo laga badbaadaya waxay ka badbaadayaan gabadhii iyo wiilkii oo noloshii la qabsan oo aqalkii la qabsan oo iyagii isla qabsan oo hawshoodii isbaran gabadhii markay walacdo gabadhu yaqanin gabadha ahay noqoto bulshadana si faad ugu sheegto halkaasaa laga kala baxay markaa taana way ka badbaadayaan laakiin dhib kala dhibta jirta waxa weeyaan xagga dumarkay la tahay gabadhu iyadu ilma dhalin hadday isticmaasho waxyaabahan ilmaha la iskaga joojinayo waana waxaasaan maqlay run ma aqaan inay tahay doctaradoodii weydiinayaan gabadh kastaba doctorkaga weydiiso dawooyinkan iyadoo ilma weli dhalin waxaan maqlay ma wanaagsana waxaana doctorka garan la weydiin doonaa markaasi in sanada inay dawadaa qaadano ninku dee hawshaa u jira habayaa fiican mugta sanad kadib waxaan odhan lahaa ilmaha iska dhalan xabid ilma ay ku dhaqawsadaan kadibna intaa doonaha iska socdaan gabadhana waxaa odhan lahaa gabadha waxaa ka faa'iidaysanaysaa iska gusta dee yaraanta hadduu calafka yimaado hadduu calafka yimaado inayna de odhan dacan imankaa waxa baan baxanayaa waxa baan dhiganayaa halkaa baan gaaraya waktigaasaan guursanaya wakti markay guursantana haddana waktigaa ma dhalaya waa isqaadqaadanaysaa ninka ma taabanaysa arrintaas laakiin iyada way taabanaysaa waktiga anagta wakti waana ku socdaa laakiin de badanka waxay ka socotaa xagga waalidka runteeda la sheego iminka gabadhii oo de iskool dhiganayso waxaa leeleeyahay horta iskoolkaaga kasoo bax jaamacadaada kasoo bax maalintaa qalanjubisidna waxaa lagu leeyahay ninkii ninka xagu ka iman lahaa intaas lado farsho iskool dhiganaya may iskoolkana hala dhigto ilmahan imanka madhana laleeyahay wuxuu qofku waxaad helaysaa waktigaas iskoolkaaga dhiganaysa ninkiina noloshaada aad la qaadinaysay oo aad isfahmayseen isla soo dhamanaysa iskoolkiinii marka dambe dadka ku tarayseen inagu wax tirsanayseen hore u soconayseen hooyiyi aaba markaa isku diyaarinayseen marka ina imanka hablaha jaamacadda loo diraa inamada marka gabadha jaamacad loo diray dee xaaladeeda ilaah baa garanaya laakiin wiil haddii lagu dari lahaa way silaarsan lahay ubadkan yaraana waxaa haddii helayaan marka horeba hadii laga idhaado markaa jaamacadda tegaysid wiil wanaagsan insha allah haddii ilahay kukan aan ku dhisayna wiilkana saa laga idhaado hadafkuu qofku leeyahay waa inaad gaadhid waktigaad jaamacadda gelaysay ila waad guursan doontaa imanaysa laba qof eego iska raali oo ishalena waa inaa la isku daro isla markaana waa inaa jaamacadda la wada daro oo xataa dhaqaalihii gabadh kelida la siin lahaa u diraan dadkoo wiilkana u diraan islana galaan isla noolaadaan markaa loo fududay ubadka maad aragtahay noloshooda inaan laga dhexgelin dadka waa labadan qof hadaf bay leeyihiin waday ku socdaan wadadaasi hadday nadiif tahay hadafku way gaarayaan laakiin haddii 50 siigo haddii lagu sameeyo
indhaha ka qabatay dad bay ka dhacayaan Warun. marka talooyinka waadada ay la soo rarayaan wax fiican bay doonayaan waa run laakiinse talooda ka fiican ha loo tahay Warun ha. Warun waxa arano dad taas ka hadashay laakiin ila guurka waa tiri waxa jira guurka inta ugu horeysa caruurtu markay weynaado adana relationship wuu isbedilaa adana marka la isla weynaado adana sheekadu way isbedishaa marka koleyba dee seeba loo wadi lahaa sheekada arano imika maxaan ku dhahdaay 6 dabaqadood bay dib gaaraan waqti marka 3 baan ka soo qaadanay ha 3 ka hadashay waa markii ilmuhu dhalanayo waxa ka masuulay ilaahay inta ka soo gashay waadada waxay ka bilaabaysaa waada iska raali ah inay isku kursadaan ka bilaabaysaa waxa qaymaha moqti waayo haddaad ninka raali ka tahay raali ka yahay aragtid foolxun ma kala arkaysiin dhibaatadiisa degdeg uma arkaysid haddaad aragtidna degdeg baad ugu saamaxaysaa laakiin haddaad ninkii raali ka ahayn wanaaggiisa xumaan kugu bedelaya marka ilmihiina aabihii way kala tagay ma rabo in hareeraha laga joogaa la rabaa marka ilmaha halkaas wuxuu ka bilaamayaa hooyiya aaba isdoortay oo iska raali ah inay isku sidaan dad alla ka baqlana oo diinlana inay iskursadaan marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu amray ka yiri waadada war nin diin iyo akhlaaq leh hadduu idin yimaado u dhisa gabadha kuma u darin dhaqaalahana dhaqaale la'aanti lama soconaysa waa loo baahan yahay laakiin diintii akhlaaqdii dhaqaaluhu waxay dabagaleen diintii akhlaaqdii dad diin akhlaaq lagu dhisay baa jira laakiinse aan laga helin wixii la moodayay dadkaas waxa weeyaan diinta way bartay laakiin kuma dhaqna waa inuu qofka isku dhaqo waxaa la joogaa adduunyo wuxuu ku odhanayaa ibliisku naagtan waxaa ku sameeya oranaya waa inuu garto hadduu ku dhibaateeyo ilaahay inuu kala xisaabtamayo waa inuu naftiisa isagoo u baqaya naftaadi wanaajiyo wuxuu odhanaya qofka wanaagga ha u sameyni wuxuu garanaya wanaaggu ku sameeyey ilaahay daraadii amarkii uu qaatay ilaahay inuu ilaahay boqol wanaagsanay marka diintu saaba dabaqas cadaalad baa imanaysa akhlaaqna waxay ka dhigan tahay qofku weji furan oo farxad ku geliyo noqonaya qalbigii waa farxaya degaya cadaalad helaya xaqiisa helaya kadib qalbigii degay ee nuuray kaahi nuurka ka soo baxay ayaa soo jiidanaya barakada wax la yiraahdo samada ee haarta soo jiidanaya barakadu lacag badan maaha waa $1 oo ilaahay kaaga dhigo $1 marka qalbigii quruxda xitaa qofka jirka qurux badan uu leeyahay qalbigu markuu doogo nooro iyo jirka inta kala saameeya quruxda ka laga helaa waa kala yiraahdo qofka waadan oo qurux badnaado qalbiga u tagay ama uu kursta la qoran ama shaqo hela la qoran marka quruxda halka ka timaadaa ta kala quruxda waxay ka timaadaa imika waxaa jirtaa gabdhaheenu iyo dadkeena qaar kamid ah ay ka raali ahaadaan gabdhointaasi wejiga ay ku dadaalaan oo dee waxbay marmarayaan oo way daaliyaan moogta wejiga marka hore sunaad qurux badan ilaahay baa ka abuuray marka xitaa weysada ayaa noorta qalbiga dege baa noora jirka markaasi laakiin waxaa jira meelo kale oo malin gabdhuhu ka warhayn qaarkood oo in la iska qurxiyo mudan meelaha kale waxaa kamid ah gacmaha gabadha waa inay ilaaliso gacmaheega gacmo jilicsan oo qurux badan waa inay ku dadaasho laakiin gacmo adag haday yeelato ma fiicna gabadha waa ina gacmaha ka shaqeyso taasi micnaheega maaha hawlaa ku qabanin hawsho waa inaa wakti la bilaabo saa u dhamaato wakti laga baxo dad dhexda kaga dhacdid hawsha ma dhamaato adag ma dhamaanaysaa markaasi waa inaad gaan ka xidhatid haddaad weli waxa maraysid haddaadna haysan markaad dhamaysid waa inaad dee crem yaroo gacmaha jalciya ilaalisid gacmahaaga waa inaad clario samaysid waa inaad faraagasha waxaa samaysid gacmuhu shaqay helaan shaqay leeyihin shaqada waxay ka dhigan tahay ninkaad markaad la fadhido waa inaad gacmahaaga iyo gacmihiisa ku dhex jiraan oo faraha la iska show laga sheekaysto markaa gacmo qurux badan oo jilicsan oo flagido oo caynkaasa indhihiisi gacmahaaga weynay oo qooni ka dhacaysa isla markaasi waxaa iman doontaa inuu fargalka inaad kugu qurux badan intuu yaqaano oo fargal quruxda marka wale uu kuu soo qaado isagoo garanaya waxa uu doono waka markaasi waxaa kaloo tahay ka daran yadna lugaha in la ilaaliyo saagdhibaha oo kale haddii gabadha noqoto gabadha eedba adag edhba cadcad qaar kamida in yar yar dilaacaan waa dhibaato marka haddii kaa dilacaan waa dhibaato oo dee dura hadday kaa surato markaad seexanaysa waa dhibaato balse ninkaba hadday sarto maxay saray
su-aasha jawaabteeda waa adayg balugteeda ma odhanaysid marka lugaha waa in laga shaqeeyo rag waa indhaha waxay arkayo lugaha waa in xariir laga dhigo jilicsan kuleereer leh marka la iskala guddo laba dumara iyo laba ragga loo kala garto meelaha in lagu dadaalo meelaha in la iska eego ayaa qurux badan ninku markuu yimaadada su-aala qabriyaadka waa in laga daayo oo wax caadiya loo arko rag baa jira yidhaahdaa ilaahay saantu seexanayso ma tagi kareen aqalka waayo keen badan ugu furaya laakiin markay seexato caajiska daraadii wax badan odhan kari mayso taasina nolol ma aha diintana waxay ku leedahay reeraha xaaska bacdal ishaaci in loo taga maaha waayo wax la raba labada qof isku faaro laakiin waqtigaas ama siyaarada ku iman ama siyaarada baxaysaa ma dhaqaani moogtahay marka fadhiyada bala dhigtaa ninka naagta dhigtay isaga ugu fadhiistaan ugu sheekaystaan way adag tahay marka waa inaa bacdal ishaaci iyo iska tartiibiyo waa inaad labiskii isaga u gaar ahaada xidhiidyada oo dabeecad caadiya oo labis dee xoogahoo maanta dee way maagaysaa u idhahda maaha nin marka haddii la weeraro way cabsoodaan marka way wax weeraraan bay ka helaan moogta marka xarakaada kusoo weerara in la sameeya fiican markaasi waxaa leeyahay dee waa inaan fadhiga la fariisto oo lagu sheekaysto la qasqaslo asalka sheekadu qalbiga ayay furtaa gacannas la sameeyo dee xaraka tartiib saadi marka waxaa loo ashaahadanaya tartiibtii baaran jirin badi ma jirto markaa naag daasha u seexatay ninka wax weydiiyay dee waana quraha ushaag baleed markaa tartiib bay leedahay moogtay wax kastoo fiicanba waxay leeyihiin wax ka horeeya oo ilaaliya salaada sunayaasha waxay ilaalinaysaa faralka sunaha hadduu kaa tago faralkaa kalisku ku jira sunahaaga dadagisa faralkaagu fiican yahay markaa gukashana waxay u baahantay waxa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam caash way wada beeran jiray maamadeed way wada beeran jiray markaana tartiibta loo soo maro deetana lasoo wada meedho deetana laisku farxo saasaa loo baahaya fari laga dhigo waxay gaala leedahay maa islaamka wax iskale waxda ilaahay ku baneeyay waana wixii reerku uu reerku ahaa reerku wuxuu reerku ahaa weeyaan dadkaas wada fahmi laa arrintooda gel laayahay waxa ka xun waa halkaas amba ninka ay wax ka xun ama naagta wax ka xun والله تاس وحاضر حنون وأنا هرا على هجاجيو فرحتي قصر كنا للصبايا لو كان دو سوي مادنا وإن ما دركتها لو كنا نقدروا أنت بدو حلا ما ينعم أو ساعتين بقول عايز شيء تاكس كلو كنا جاي لو ما وجه لهم ده ده بحد حياتي على كنا جاي ما تبي ده بيجي كم معي كاسو نقول تو كنا دوحهم تاجي مرة عوانا صامر بالك جاي ولا سمارك به عجيب وراح أنا صوت أنا كم حد ما قطعي وقت أنا نمسي نسي أنا كنا لا فردي بركة صباح حسا وح حركات بمرق الجلسان صوت كم قرني كذا كده لما بربطك حسا مر عوالنا صامر ده كده صاحب كيس مالك واي يقولني صامر حسا سنا بيموت ما ورد أرتي ممكن ألاشن حاجة دي بدأ وحي قصب نوعا نكتبها أنت عن وقتي أسلق على هذيك كلام أنا قلنا صدق قف كسبوا بيزي وشقي سووا شقي أقول شقة مرة ما تعرورتي وقت إسلاقاته هذا بين كتاي 30 minutes بقى marka cawaalo sabra markaan ku leeyahay ma aha ninkan inuu kaa maqlaa fiican ma ninka goyn kula joogo laakiin qaabku kula joogo bilaaba waa sadaasa ila joog hadaa taadi tarab way si ordan marka inaa la wada sheekaysi la yeesho waa muhiim saacad wareysi kala yado oo la isku farxo oo la isla sheekaysto oo la isla qoslo inaa la helo waa muhiim easy وانت laga dhigaa in la yaro wada baxo oo la isla farxo waa muhiim kalgacal baa laga helaa la isla waa muhiim waxa sameeyo waa muhiim markaas xagana ayaan kusoo gabeynaa sheekada jazakallahu khairan oo inta maanta waqtiga noo nala qaadatay kolleyba dee xaga commentka sectionka dad badan ayaa waxyaabo badan kusoo qori doona fikraadina ninkuna oosta kusoo qorin insha allah jazakallahu khairan adana maama waxaan rajeynayaa inta ka faa'iidaysteen muuqaaladan diiwaankaas waa inoo madhow xagee lagaa heli karaa social media kumaba jirtid ba وصدا ولكن إن شاء الله إن شاء الله أنتي ربطوي وأديك أسين كلا تليفون كيجا إن شاء الله وحنا وحلنا وإسكال دقيقين ورنتونا وعدك موت وأنا كذا لكن ساكن كذا بلاست مال فوق هذا ترى لك عربي ونسكت تاجي وبلاريه تدعى ترى عرب كده وقراري لكن تستمع شيء تقرأ يحمد بقابيه مركا أنت مركا لقاء وحلقة هاي نور يراحة مركا مركا على هذه السفرة طب قبلها على السفرة ريال على هنا تجيو آمين وحنا خاذا كوحنا نسكت عفري له درادي آمين وحي في عنا على هنا واقع إن شاء الله آمين جزاك الله خير وكاسب الريال إن شاء الله وإنه مردو مع السلامة